kulan wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka qubanaha maanta oo ka imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. qodobada aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Soomaaliya ay ka socoto doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo ilaa haatan la soo doortay in ka badan 100 xildhibaan. dalka Morocco shaqaalaha gurmadku ay ku dhow yihiin inay soo saaraan wiil yar oo ceel uu ku dhacay ku go'doonsan. shirka midowga Afrika oo hareeyay muran la xiriira aqoonsiga Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Falastiiniyiinta ayaa madaxda ururka ku booriyay in ay ka laabtaan aqoonsiga Israa'iil. Mike Pence madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka oo markii ugu horeysay si aad uga hor yimid madaxweynihii hore Donald Trump. qodobadaas iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan barnaamijkeena qubanaha maanta. aan ku bilownay magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya waxaa si xawli ah uga socota doorashada kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. in ka badan 100 xildhibaan ayaa ilaa iyo iminka lagu kala doortay magaalada Muqdisho iyo magaalooyin kale. wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa wararkii ugu dambeeyay ee arrimahaasi la xiriiray inoo haya. Cabdulqaadir haye. mas'aada mahadsanid doorashada xildhibaanada golaha shacabka si dardar la ayay hadda kaga socotaa guud ahaan goobaha deegaan doorashada ah 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir waxaana doorashadu u muuqata maalmihii la soo dhaafay inay ka qabsoomaysay deegaan doorashooyinka xarumaha maamul goboleedyada iyadoo doorashadu ay tahay inay ka dhacdo 2 deegaan doorasho waxaana jadwalkii ugu horeeyay deegaan doorasho labaad soo saaray maamulka Koonfur Galbeed dhawaan oo ah magaalada Baraawe. laakiin guud ahaan waxaad moodaa doorashadu hadda inay si xawli ah uga socoto ee Soomaaliya oo si weyn isha loogu hayo tan markii heshiiskii ugu dambeeyay doorasho Muqdisho ay ku gaareen madaxda madasha watashiga qaran kuwaasi oo xusaama isku raacay in ugu dambeyn 25 bisha February ay ka soo ilaa doonto doorashada golaha shacabka horena u soo ilaatay midda aqalka sare taasoo ka dhigan in dalku aadin doono doorashada madaxweynaha markay soo dhamaato doorashadan. ilaa hadda maxamed waxaa la soo doortay 104 xildhibaan oo ka tirsan aqalka hoose ama golaha shacabka taasoo guud ahaan 295 xildhibaan laga rabo waxaana hadda waqtiga harsan markaad fiiriso uu yahay mid ay ku adkaysanayaan guddiga doorashada heer federaal in jadwalka doorasho ay hirgelin doonaan sidii loogu talagalay doorashada u socoto. waxaa doorashada golaha shacabka ay ku bilaabatay in ay hadda ku soo baxayaan xildhibaanada iyaga gacan saarka la leh ama aragti ahaan ama siyaasad ahaan madaxweynaha maamul goboleedku uu yahay inuu rabo taasoo doorasho xoog leh meelaha qaar aysan ka dhacayn waxaana u badneed meelaha qaar markaad fiiriso malxiisayaal kuraasta lagu tartamay aan ka run sheegaynin oo si sahlan ugu soo baxaya doorashada. marka waxaan eegnaaba waa suuragelinta jadwalkii doorashada ugu dambeeyay 25 guddiyada doorashadu ay ayagu sheegeen inay qaban karaan heshiiska ugu dambeeyana sidaasi ayuu qorayay. maxamed aad buu mahadsan yahay. kaasi waxa uu ahaa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo isagoo jooga magaalada Muqdisho inoo waramayay. dalka Morocco koox samata bixiyaal ayaa ku dhawaaday inay soo badbaadiyaan wiil yar oo 5 jir ah oo wali ku go'doonsan ceel uu ku dhacay waxayna rajo weyn ka qabaan inay nolol ku soo saaraan. wiilkan yar ayaa muddo 5 cisho ku dhex jira ceelkan uu ku dhacay waxaana shaqaalaha gurmadku wadaan howlgal adag oo ay ku soo bixinayaan wiilkaasi. Cabdulhaadi Tamrani oo ah sarkaalka gacanta ku haya howlgalka ayaa sheegay inuu ku rajan weeyahay wiilkan oo nool ay ka soo saaraan ceelka. laakiin daqiiqad kasta oo la dhaafaba waxaa sii kordhaya cabsida ku aadan in nolol lagu gaari waayo wiilkaasi. wiilkan yar oo lagu magacaabo Rayaan ayaa si lama filaan ugu dhacay ceel dhererkiisu yahay 32 mitir oo ku yaal meel u dhow gurigiisa gobolka Sheikh Juan galabnimadii Talaadada. hooyada dhashay wiilkan ayaa warbaahinta Morocco u sheegtay in Rayaan uu meel u dhow ku ciyaarayay ceelka markii la waayay. kooxaha samata bixinta oo isticmaalaya cagaf-cagafyo iyo qalab kale ayaa dhulka ku xeeran ceelka hoos u qoday waxayna hadda isku dayaan inay ballac ahaan u qodaan dhinaca uu wiilkan yar ku jiro laakiin waxay wajahayaan halis ah in dhulku la go'o. Khamiistii warbaahinta Morocco ayaa sheegtay in samata bixiyaashu ay ku guuleysteen inay oksijiin iyo biyo gaarsiiyaan gunta ceelka wiilkaasi yar ku go'doonsan yahay. howlgalkan wiilka lagu baadi doonayo ayaa Morocco dalalka dariska iyo meelo ka tirsan dunidaba si gaar ah loola socda. dad badan ayaa ku soo xumay meesha uu howlgalkan ka socdo
waxayna dhiirigelinayaan samatabixiyaasha sidoo kale waa ay ducaynayaan iyagoo alle ka barya in wiilkaasi isagoo nool la soo saaro. shirka madaxda midowga Afrika uga furmay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya ayaa waxaa hareeyay muran iyo xiisad la xiriirta aqoonsi la siiyo wadanka Israa'iil. Ra'iisul wasaaraha Falastiin Mohamed Ishtaya ayaa waxa uu madaxda midowga Afrika ku booriyay in ay ka laabtaan aqoonsiga Israa'iil. Ishtaya ayaa midowga Afrika ugu baaqay in uu diido go'aankii madaxa golaha midowga Afrika Musa Faki Mohamed uu sanadkii hore ku aqbalay aqoonsiga Israa'iil. Israa'iil waa inaan marnaba lagu abaal marin xadgudubka iyo nidaamka midabta koorka ee ku hayso shacabka Falastiin, ayuu yiri ra'iisul wasaaraha Falastiin. Shir madaxeedka ayaa laga yaabaa in cod loo qaado in la diido iyo in kale go'aanka Faki aqoonsiga Israa'iil, taasoo keeni karta kala qaybsanaan aan horey loo arag oo midowga Afrika soo wajahda. Go'aanka aqoonsiga Israa'iil ee sanadkii hore ayaa si degdeg ah waxa uga soo horjeestay xubno awood leh oo ay ku jiraan Koonfur Afrika iyo Algeria oo ku dooday in go'aankaasi wajigabax ku yahay bayaanada midowga Afrika ee taageeraya dhulka Falastiiniyiinta. Musa Faki Mohamed ayaa sheegay in taageerada midowga Afrika ee ku aadan madax bannaanida Falastiin ay tahay mid aan isbedelin oo kaliya sii xogeysanaysa. Wuxuu difaacay go'aanka aqoonsiga Israa'iil oo uu sheegay in go'aankaasi uu noqon karo mid u adeega nabadda, isagoo ku baaqay dood degan oo ku saabsan arrinta Israa'iil. Shir madaxeedka sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo qaaradda Afrika ay la daaladhacayso afgambi military oo xiriira oo qaaradda ka dhacay iyo cudurka coronavirus oo weli fara ba'an ku haya qaaradda Afrika. madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Mike Pence ayaa markii ugu horeysay si adag uga hor yimid madaxweyne Donald Trump oo uu sheegay hadal uu dhawaantan madaxweynuhu sheegay inuu ku qaldanaa, kaasi oo ahaa in Mike Pence uu hor istaagi karay natiijadii ka dhalatay doorashadii madaxtinimada loogu doortay madaxweyne Joe Biden. isagoo ka hadlayay kulan magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa Mike Pence waxa uu sheegay in sharcigu aanu ogolayn in uu laalo doorashadii 2020kii dhacday. Pence ayaa shirka waxa uu ka yiri, waxaan maqlay toddobaadkan in madaxweyne Trump uu sheegay inaan anigu xaq u leeyahay inaan laalo ama hor istaago doorashada. Madaxweyne Trump wuu khaldan yahay. natiijada inaan hor istaago xaq uma lihi. doorashada madaxtinimada Mareykanka waxa iskale shacabka Mareykanka oo kaliya. Trump ayaa markii uu ku guuldaraystay madaxtinimada wuxuu cadaadiisa ku saaray Pence inuu hor istaago ansixinta natiijada doorashada, laakiin Pence ayaa diiday qorshaha Trump. Axadii hore Donald Trump ayaa bayaan ku sheegay in Mike Pence uu awooday inuu hor istaago doorashada. haatan haddii aan jaleeco wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa xalay wajigabax kala kulantay koobka FA Cup-ka kadib markii kulan ay la yeelatay kooxda kubadda cagta ee Middlesbrough 1-1 inta ay ku dhamaatay ciyaartii rigoorayaal lagaga badiyay kooxda kubadda cagta ee Manchester United. Middlesbrough waxay ka tirsan tahay heerka labaad ee ciyaaraha wadanka Ingiriiska, halka Manchester United gegida Old Trafford oo kumanaan taageerayaalihii ay fadhiyeen ay ku huleeshay oo koobka FA Cup-ka kaga hartay. ciyaaryahan Cristiano Ronaldo ayaa kooxdiisa rigoore intii ciyaartu socotay ay kooxdu malaha ku badin kartay ka qasaariyay, waxaana taasi ay keentay in baraha bulshada ay taageerayaasha isaga ka soo horjeeda si weyn ugu weeraraan. ciyaaryahankan oo inta badan goolasha faraha badan ee uu dhaliyo, taageerayaasha qaarkood ay ku xantaan inay rigoorayaal u badan yihiin, kuna naanaysa magaca Benaldo, ayaa si weyn waxay u tilmaameen xidigan xataa rigoorayaashii lagu yaqaanay dhalintooda inuu haatan gabay. wagaag daawadayaal guud ahaan barnaamijka qubanaha maanta inta ayaan ku soo gabagabeynayaa. intaynu mar kale berrito haddii eebbe idmo dib u kulmi doono, waa Mascad Dawid leh sidaa iyo nooli kulanta.